midadka mas'uuliyiinta ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa salaada janaasada lagula dukaday masjidka Isbaahaysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho. Wasiiro, xildhibaano iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay tukashada salaada janaasada. Mas'uuliyiinta ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa meedadkooda aas qaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho. Waxaana mas'uuliyiintaasi aaska loo sameeyay kamid ahaa gudoomiyaasha degmooyinka Waabari Cabdulcasiis Shangaani, agaasimihii nadaafadda gobolka Banaadir, agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha, la taliyaha dhanka sharciga gudoomiyaha gobolka Banaadir. gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiidow ayaa alla uga baryay inuu jannadii firdowso ee ka waraabiyo mas'uuliyiintii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir. marka dhammaan waxaan leenahay isaga tacsiyeynaa inta dhimatay oo ummadda Soomaaliyeed oo bulshada runtii qiimo fiican ugu fadhisay ama qiimo mugl ugu fadhisay. maalin kasta waxa dhimanaya dad bulshada qiimo ku leh kuwa dilayana waa Soomaali kale. marka sida anaga isu dilayna maalinta dambe waxa dalkan waxa qabsanaya dad ajnabi ah qabsanaya waa ka xumahay hadii intaas aan ogaan lahayn oo qof kasta oo intaas uu ogaan lahaa dhibaatada Soomaali istiilayso ma dhacdeen. qofka walaalka maanta hadaa dishid biriicadu ayaa booska ku soo buuxinaya. marka Soomaalida say isu dilayaan maalinta dambe dalka waxa qabsanaya dawladda ama darisna la ama dawladda ajnabi ah oo dibadda ka yimaada ayaa qabsanaya. marka waxaan leenahay kuwa wax kharibaya oo dadka dilaya oo dhiigooda xalaalaysanayana ilaahay inuu soo hanuuniyo haduu ilaahay khayr la doonay haduu se ilaahay khayr la doonin ilaahay umada inuu ka qabto. dad anaga naga tirsan waaye qaraabana la aan naqaano oo dadkeena waxa way ku dhex jira mana fahmi kartid. marka meeshaas dhibaatada ka dhacday laga malaymeyn hadii laga malaynayo waxa way waa laga digtoonaa laha. marka dad saas ugu dhex jira ayaa dhibaatadaas geysanaya oo anaga naga mid ah qaybka anaga naga mid ah. waxaan leenahay ilaahay inuu soo hanuuniyo haduu ilaahay uu soo hanuuninayna oo soo hanuun la doonina ilaahay umada inuu ka qabto.